ugu dambayntiina bal hadda gaarigan ma raaci layd sidaas idin muuqata waa ay gaari wada laakiin tababarkiisa waxaa la sheegay in aad iyo aad loogu rafaaday isaga iyo ayada kale ee gawaadhida wada ee wadanka New Zealand arrintan ayaa waxaa la sheegayaa inay ka dhalatay kadib markii hay'ad kuwa ka shaqeeya daryeelka ayda dadkii lahaa iska tuureena ay markaasi bilaabeen inay aydaasi ku tababaraan sida gawaadhida loo kaxeeyo ujeedada hay'adaasi ay sheegtay inay arrintaasi ka lahayd ayaa waxay tahay bay yiraahdeen in markaasi dadka lagu baraarujiyo inaanay aydu ahayn qaar la dhayalsan karo oo fahmadoodu ay aad u wanaagsan tahay hase ahaatee markii ay ka sheekeynayeen khubarada aydaasi ku tababaray sida gawaadhida loo kaxeeyo ayaa waxay sheegeen in mar walba ay wax gaara barayeen oo mar ay bareen sida steerinka loo qabsado oo mar ay bareen sida geerka loo bedelo oo mar ay bareen sida saliidda loo qabto marna ay bareen sida breeka loo qabto laakiin su'aasha meesha ka maqan aan anigu isweydiinayo waxa weeye talo ayga hadiiba uu ku qaado sidee loogu sheegay halku ku geynayo iyo halku ku dhigayo waxaan u malaynayaa malaa waa tallaabada dambe aydaasi lagu tababari doono They got run over the car, you know, the braking, the dogs, you know, but no, we've got it all here now. There's no excuses. We've got to get in there and show that dogs can drive cars. Good. The dogs' new skills will be tested on live TV next week. Let's hope they're not distracted driving past lampposts. Jonathan Samuels, Sky News, Sydney.